muddo dheer ma aan hadlin marka maanta waxaan rabaa baaq yar oo nabadeed inaan jeediyo bani aadamku taariikhda uu soo maray ayuu ka faa'iidaystaa naxariistii janna allaha ka waraabiye abwaan cabdi maxamed amiin ayaa wuxuu yidhi isagoo taariikhda ka hadlaya taariikhdu dadkay bartaa doraad waxay faleen cidna ma diido cidna ma doonto oo runtay dacal ku haysaa dadow haddaba taariikhdeenna marka laga soo bilaabo sannadkii 1977 ilaa maanta oo sannadku yahay 2023 waxaan ku soo jirnay 45 sano oo colaad iyo dagaala dagaaladaas dalka soo maray marka laga reebo dagaalkii 78 ee lala galay Itoobiya iyo maanta haatan lagula jiro khawaarijta al-shabaab dagaalada kale oo dhami waxay ahaayeen kuwa qabaa'il ka dhexdhacay muddadaas dheer ee colaadda sokeeye iyo dagaalada ku socdeen dalka laba arrimood ayaan ka barannay oo midna inaan ka faa'iidaysanno labada arrimood kala ah inaynu ka faa'iidaysanno arrintaa aynu soo marnay inaynu ka faa'iidaysanay ahayd nasiib darro kama aynaan faa'iidaysan oo micnaheedu waxa weeye taariikhda bini aadamku dal kasta oo la soo qaato laba arrimood way leedahay de xumaan iyo samaanba way leedahay wax fiican oo taariikhda ummaddaasi ay leedahay waa jiraa waxaan fiicnayn oo soo martaana waa jiraan laakiin dal kasta waxa weeye taariikhda fiican ee uu soo maray wuu ka faa'iidaystaa horu u mariya wixii xun ee uu soo marayna wuu ka tagaa oo wuu iska ilaaliyaa laakiin innagu kama aynaan faa'iidaysan Soomaali haddaynu nahay oo waxaan anigu leeyahay 21 sano oo taariikhdeenna ah taariikh ummadunu leedahay oo sida aan sheegayo waxuna soo maray wax fiicanna soo martay dhammaan waan tuurnaa taariikhdaas kolkaan idhaahdo waxaan leeyahay muddada dheer ee colaadaha sokeeye iyo dagaaladu ka socdeen dalka laba arrimood oo aan ka barannay oo midna inaynaan ka faa'iidaysan labadaas arrimood weeye kow inaan maanta dagaal lagu faa'iidi karin oon guul lagu gaari karin waynu ogaanay sababtaa waxa weeye 45 sano dagaallo aynu ku jirnaa weli waa taagan yihiin way socdaan ta labaad waxa weeye marnaba dagaal kasta oo la galaa male horumar iyo faa'iide ee waxa weeye wuxuu keenaa un barakac dhibaato iyo dulli inaynu kolkaa taariikhda aynu soo marnay inaynu ka faa'iidaysanaa waa lagama maarmaan waxaana sabdira inaynaan ka faa'iidaysan taariikhda ayna soo martay sidaa daraaddeed arrinta haatan ka socota magaalada Laascaanood waa arrin aan aad iyo aad uga xumahay inay dhacdana ma mudnayn waxaanse soo jeedinayaa 3 arrimood kow xukuumadda Somaliland waxaan u soo jeedinayaa in dad shacab ah oo bannaanbax samaynaya in xabada lagu furo oo la dilo waa arrin khaldan waana in la joojiyaa talabaad dadweynaha reer Sool iyagana waxaan leeyahay muddo dheer ayaad nabad ahaydeen waxaanad
waanad ku ammaanantihiin hase ahaatee mudaaharaad wax burburinaya oo nabadda lid ku ah ma fiicna ee ha laga joogo waxaan ugu baaqayaa ta saddexaad waxaan ugu baaqayaa in la wada fadhiisto la wada hadlo xalna lagu gaaro heshiis iyo isafgarad waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa Soomaaliyey danta dalka iyo dadku waxay ku jirtaa nabad ku wada noolaansho iyo in nolol loo sameeyo meel kastoo khilaaf ka jiraanna guud ahaan Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa in halku ku jiro wada hadal heshiis iyo isafgarad intii dhimatay ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacaana ilaahay ha u boogadhayo colaadahana ilaahay haynaga qaboojiyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin